waxaa maanta la guddoonsiiyey abaalmarin tartamayaashii ku guulaystay tartankii socday bishii ramadaanka ee ka baxayay idaacadda codka bulshada wajeerkaas oo isugu jiray su'aalo diini iyo kuwa maadi ah. maamulaha idaacadda codka bulshada wajeer ayaa guddoonsiisay abaalmarinta guulaystayaashii ku soo baxay tartankii bishii barakeysneed ee ramadaan, taasoo ay qayb lixaad leh ka qaateen Cabdulaahi Yuusuf oo ah madaxa fulinta ee hay-adda Chief Salat Foundation iyo ururka haweenka gobolka Waqooyi Bari. kaalinta ugu horeysay ayaa waxaa gashay Miski Axmed Cabdulaahi, halka labaad iyo saddexaadna ay kala galeen laba wiil. maamulaha idaacadda codka bulshada wajeer Xaliimo Kaahiye ayaa ka hadashay dhageystayaasha ay maanta guddoonsiisay abaalmarino kala duwan. hadalladeedana waxaa ka mid ahaa sida tan. magacaygu waa Xaliimo Kaahiye Cabdille, maamulaha idaacadda Wajiyo Community Radio. maanta waa maalin farxad leh maadaama aan halkaan bixinayna ijaazadaas oo ku socoto saddexda guulaystayaal oo ku guulaysteen barnaamijka tartanka diiniga ee soo socday muddo bil ah bisha barakeysan ee ramadaanka. saddexda guulaystayaal ayaa qofkii ugu horeeyay waa gabar oo u mahadcelinaa iyada iyo waalidiinteeda kudi maadaama ay ku soo barbaariyeen diinta islaamka. waa Miski Axmed Cabdulaahi ayaa guulaystay ugu horeeyay ama namboonka waxaa ku xiga Aadan Axmed Sheekh, asagana waa loo yaqaana magaca Abu Mansuur ayuu isticmaalay waqtiga idaacaddu soo wacay ayaa guulaystay labaad. guulaystay saddexaadna waa Xuseen Maxamed Cali oo loo yaqaana Sahnuuni. wuu ku maasan yahay maadaama saddexdooda ay tartan galeen ayna ku guulaysteen, mayna ka daalin. waa dhalinyaro. annagana waxaan ku baraarujinaynaa bulshada reer Wajeer in loo dadaalo caruurta lagu barbaariyo diinta maadaama annaga aan nahnay muslimiin. barbaariskan uu ka mid yahay muhiimadda koowaad ee bulshada. ugu horeyntii Miski waxaan siinay ijaazo oo 26,000 iyo kitaab tawxiid maadaama ay tahay gabar oyna noqotay number 1 oo mahadcelinayna. guulaystay labaad Aadan Axmed Sheekh, asagana waxaan siinay 15,000 iyo kitaab tawxiid guulaystay saddexaad Xuseen Maxamed Cali, asagana waxaan siinay 15,000 iyo kitaab tawxiid intaa waxaa noo sii dheeri sheekhi oo fiirinay tartankaanayta oo ka qayb galay sida u tartamayeen dhalinyarada ama dhageystayaasha ku xiran idaacadda Community Radio. asagana waan u mahadcelinaynaa. waa Suleymaan Cantar, maadaama asaga uu ahaan shaqaale Community Radio laakiin uu isu soo bixi in bulshadii uu sii fursadaasayta oo dhalinyarada ay ku tartamaan. asagana waan u mahadcelinaynaa. Cantarna asagana waxaan siinay 10,000 aan siinay maadaama lacag badan aan siini karin, laakiin waan u mahadcelinaynaa idaacadda Community Radio haddaan nahnay. waxaa ka qayb qaatay ama ijaazadaanayta ka qayb qaatay inay suurta gasho oon rabaa inaan u mahadceliyo. kow waxaa waye Zakariya Qasaay iyo Dr. Cabdulaahi Yuusuf. waad mahadsantiin walaalayaal, lacagtaa soo dirteen way gaartay guulaystayaashii tartanka barnaamijka diiniga. waxaa kaloon rabaa oon u mahadceliya North Eastern Women Association NEWA. waad ku mahadsantiin walaalayaal maadaama aad aragteen in haddii gabadha ay ku guulaysatay in idinkana aad wax ugu kordhisaan. waad ku mahadsantiin walaalayaal. waxaa kaloon mahad u celinayaa Maktabatul Qalam maadaama kitaabaha ayna siisay oo tawxiidka in dhalinyaradanaita aan siino. way ku mahadsantahay maktabada iyo shaqaalaha idaacadda Community Radio. waad ku mahadsantiin walaalayaal maadaama barnaamijkii uu soo socday bishii barakeysneed ee ramadaanka aan soo gabagabeynay uu socday 29 beri. waad ku mahadsantiin. maantana fursad waxaan siinay in dhageystayaashii ku guulaysteen in aan siinay ijaazada. jazaakallahu khayran. waad ku mahadsantiin bulshada reer Wajeer iyo dhageystayaasha ku guulaysteen. jazaakallahu khayran. dhanka kale tartamayaashii ku guulaystay tartankii bishii ramadaanka ayaa ayagana nala wadaagay dareenkooda. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Xuseen Maxamed oo magac dheer Sahnuuni. waan ku faraxsanahay maanta idaacadda Wajiyo Community ayaan joognaa. waxaana la siiyey maaragtay jawaa'iz aan filinaynin in la siinayo. waxaan maaragtay aan ka qayb qaadanaynay
su-aalo diini ah iyo weliba xirmaya isku dhex jiro waxaan soo galay nambarka 3 waxaa maanta la siiyay jaa-izadii maadaama aan guuleysan waa u mahadcelinayaa Wajia Community Radio. bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan salaamahayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. magacaydu waa Miski Axmed Cabdullah. waxaan ka mid ahay tartamayaasha barnaamijkii Ramadaanka soo socday. alxamdulilah ilaahay waa noo soo gabagabay maanta waxaana la siiyey jaa-iso idaacadda Wajia Community, jaa-iso aan filanaynin. alxamdulilah waxaan u mahadcelinayaa. waxaan ahay gabartii kaalinta koowaad gashay. alxamdulilah. ugu dambeyntiina Ustaad Suleymaan Cantar oo in badan barnaamijka tartanka xaafadaha bishii barakeysneed ee Ramadaan in badan hoggaanka u hayay ayaa asna ka hadlay sida uu barnaamijkani u socday. waxa uuna mahad iyo duco isugu daray dadkii wax la baxay iyo dhageystayaasha in badan barnaamijka inta uu hawada ku jiray si wacan ugu soo qayb qaadanayeen ayagoo dhibco kala qaadaya xaafadahooda. anigoo ah Suleymaan Ibrahim Cabdi loo yaqaan Suleymaan Cantar ama Abu Leyd Salmaan Ibrahim xagga Facebook. halkan maanta waxaan u joogaa inaan ka warbixin kooban ka bixiyo barnaamij soo socday aan daadiye ka ahaa bisha Ramadaanka caweyska Ramadaanka ahaa tartan aqooneed u dhaxeeyay bulshooyinka ama xaafadooyinka ka kooban tahay degmada Tani Wajeer soo qaatay 22 habeen 29 taqriiban kaas oo si guul ah ku soo dhamaaday. maantana bidalkeeda ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadii kadib aan soo gaarnay gabagabadiisi iyo ijaaso in la siiyo dadkii ku guuleystay nambarka 1 2 iyo 3 soo galay inaan siino iyo maanta halkaan isku imaanay. marka koowaad ma hadda waxaan u qalinayaa idaacadda Tani Radio Community ama codka bulshada sida uu taqaanaan suurtagelinta ay noo suurtagelisay barnaamijkaas waqtigeeda ay noo ogolaatay inaan bulshooyinka la macnaha la wadaagno aqoon kororsiga ayagoona runtii faa'iido badan kala kulmay ama aqoon kororsi guud ka qaatay ayay mahad ku leeyihiin Wajia Radio Community 100%. sidoo kale waxaan mahad labaad u dheerinayaa dadkii mashruuca maalgeliye misaba gacan ka qaatay dal iyo dibad meel alla meesha joogaanba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la baxdeen in kama qasaariyo xasanaadkiina maalinta qiyaamada maanta aad ugu baahi badantiin Ilaahay miisaanka ay saaro aakhirana wax wanaagsan ay la kulmiyo adduunyadan waxaad u baahantiin Ilaahay in ku siiyo caruurtiin iyo ahalkiisa Ilaahay ku xifdiyo wixii balaayo iyo macnaha fitna Ilaahay ay ka ilaaliyo. qaybta saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha dhammaantood ka soo qayb qaatay kuwa ona ku guuleystay ama aan ku guuleysan inta bay ka koobayeen dhammaantood waxaan leeyahay mahadsantiin soo beegsado mar waliba ku cirnaada codka bulshada halkaad wad kala kulmaysaan aqoon kororsi diin iyo maadi labadaba. waxa si gooni ah mahad isla meesha ay u diraya dhageystayaashii saddexda ugu horeeyay ee guusha gaaray gabarna ugu horeysay laba wiil ay ku xireen ayaan leeyahay jazakumullahu khairal jazaa. dadaalkaas hore loo sii wado yaana la istaajinin kulli mustaqbalka ama waqtiga soo socdana waxaan keeni doonaa barnaamijyo kale ka sii duwan ama quraan tartan ha noqoto ama iyadoo la sii bilaari ha noqoto ayaan keeni doonaa. ha loo diyaarsado dhammaantiin bulshada waan in salaamay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii aad ka dhageysateen halkaan ee wanaag ah ha in ku anfaco. si kastaba ha noqotee tartankii bishii Ramadaan socday ayaa ahaa mid aqoon kororsi kaasi oo lagu kordhinayo aqoonta bulshooyinka Wajeer iyo nawaaxigeeda.